dowladda Turkiga oo shuruudo culus dul dhigtay Finland iyo Sweden iyo niyad jab xoogan oo soo food saaray isbahaysiga NATO. wararkii ugu dambeeyay ee Ruushka oo horumar weyn ka sameeyay dagaalka Ukraine. Shiinaha oo taariikh cusub dhigay kadib markii uu iibsaday shidaalkii Ruushka ee reer galbeedka iska diideen. hogaamiyaha Ukraine oo sheegay in Afrika ay halis ku jirto. maxaa keenay fariintiisan cusub? qodobadaas ayaan ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Bandhiga TV. fadlan sii share garee muuqaalkan sidoo kalena qaybta followga ama subscribe-ka noo saar. waa bilaash waxaan idin soo gudbin doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo dunida. dowladda Turkiga waxay sheegtay in aysan u arkin shirka NATO ee toddobaadka soo socda inuu yahay kii ugu dambeeyay ee lagu xallin lahaa diidmadeeda ku aadan in Finland iyo Sweden ay ku biiraan xulafada difaaca reer galbeedka ee NATO. hadalkan ayaa ka soo yeeray afhayeenka madaxweynaha Turkiga Ibrahim Kalin waxaana uu daba socday wadahadal degdeg ah oo ka dhacay Brussels kaas oo madaxda NATO ay rajeynayeen inuu gogol xaar u noqon doono ogolaanshiyaha rasmiga ah ee dowladaha waqooyiga reer Yurub ugu biirayaan shirka NATO ee dalka Spain ka dhacaya. afhayeenka madaxweyne Erdogan mudane Kalin waxa uu sheegay in Turkiga uu rajeynayo ama uu ka rajeynayo Sweden inay qaado talaabooyin wax ku ool ah oo ka dhana dhaqdhaqaaqa kooxda argixisada ee PKK, isagoo intaa ku daray in mas'uuliyiinta Sweden ay arrintaas kala hadleen. jiritaanka ururada argixisada waa in laga soo afjaraa wadamadaas. taas waa wax aan ka filayno labada wadan Finland iyo Sweden, ayuu hadalkiisa ku daray. Ankara ayaa sidoo kale ugu baaqday dalalka Sweden iyo Finland inay ka hortagaan dhaqaale kasta oo ay aruursanayaan kooxdan iyo qoritaanadooda xubno cusub oo argixisada ku biira, iyo sidoo kale inay joojiyaan dhaqdhaqaaqyadooda iyo dacayadaha ka dhanka Turkiga ay sameynayaan. xukuumadda Ankara sidoo kale waxay ka dalbatay labada wadan in ay ka qaadaan xayiraadda dhinaca hubka ay xilli hore saareen wadankaasi Turkiga. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Finland haweeneyda la yiraahdo Sanna Marin ayaa dhawaan muujisay cabsida ah in haddii aan arrintan si degdeg ah loo xalin oo aysan ka qayb gelin shirka Madrid ee NATO ay xaaladoodu halis geli doonto. Jarmalka ayaa sidoo kale hoos u dhigay rajadiisii ahayd in heshiis laga gaaro arrintan ka hor bisha June. iminkan haddaynu fiirino wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka ka soconaya Ukraine, madaxweynaha wadankaasi Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in Ruushka uu Afrika ka dhigtay la haystayaal ayna halis ugu jiraan in cuntadii qaaradaas loo dhoofi jiray ay joogsato, isla mar ahaantaana taa ay keeni karto inay macluul u baadaan dadka Afrika ku nool. waa sidoo hadalku yiri. hogaamiyahan waxa uu sheegay in Moscow ay gab ahaan bixirtay markii badda madow ee ay dowladiisa dalka ugu dhoofi jirtay Afrika iyo suuqyada kale ee dunida. ciidamada Ruushka ayaa weli dagaal ka wada gudaha Ukraine waxaana isku dayayaan inay qabsadaan magaalooyin hor leh. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Moscow ay galeen warshada tamarta ee sida weyn loo ilaaliyo ee magaalada Severodonetsk la yiraahdo. dhinaca kale madaxweynaha wadanka Mareykanka Joe Biden oo booqanaya Yurub ayaa iska diiday in uu Ukraine ku daro safarkiisa xilli madaxda ama hogaamiyaasha wadamada reer galbeedka ay wadanka tageen. isagoo la hadlayay saxafiyiinta, Joe Biden ayaa sidoo kale sheegay inuu rumaysan yahay in Ukraine ay ku dhowdahay inay xubin ka noqoto midowga Yurub. hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa dabayaaqada isbuucan la filaya in ay go'aan ka gaaraan in Ukraine ay noqoto musharaxa rasmiga ee ku biiraya midowgan. go'aankaas oo lagu tilmaami doono guul weyn oo ay gaari doonto Kiev, taas oo hadda dagaal kula jirta wadanka Ruushka. dhinaca kalena xilli adduunku wajahayo xaalad shidaal la'aan oo aad u xoogan, Ruushka ayaa hadda suuqiisa ugu weyn ka dhigtay Shiinaha, iyadoo 50% la kordhiyay shidaalka Beijing ka dhoofsata Ruushka. Shiinaha ayaa kor u qaaday saliidda ciriinka ee laga keeno Ruushka bishii Maaj, isagoo oo gacan ka geysanaya in la dhimo khasaarihii Moscow kaga yimid wadamada reer galbeedka oo dib u celiyay tamartii Ruushka kadib duulaankii uu ku qaaday wadanka Ukraine. xogta kastamka Shiinaha ayaa isniintii muujisay in saliidda ciriinka ee Ruushka laga dhoofiyay ay kor u kacday 55% bishii May marka la barbar dhigo sanad ka hor oo gaadhay heerkii ugu sarreeyay, waxayna booska kala baxday Saudi Arabia oo ah alaab qaybihii ugu sarreeyay ee wadanka Shiinaha. Shiinaha oo ah dhaqaalaha labaad ee ugu weyn dunida ayaa qiyaastii 8.42 milyan oo tan oo saliid ka dhoofsaday Ruushka bishii hore. xogta laga helay maamulka guud ee kastamka Shiinaha ayaa muujinaya in 7.82 milyan oo tan oo shidaal ay isla muddadaas Sacuudigu ka dejiyeen wadanka Shiinaha. Shiinuhu wuxuu ahaa suuqa ugu weyn ee Ruushka ee saliidda ciriinka tan iyo 2016. shidaalka laga keeno Ruushka waxa uu ka mid yahay sahayda laga soo qaado bariga Siberia ilaa badweynta Pacifiga,
iyada oo hadda ruushku uu qafiifiyey ama uu hoos u dhigay qiimihii uu Shiinaha ka sii jiray shidaalka. Wadamada Yurub iyo kuwa kale ee reer galbeedka ayaa xaalad xun wajahaya kadib markii Moscow ay cunaqabateeno dul dhigeen, isla mar ahaantana maamulka madaxweyne Vladimir Putin ay joojiyeen shidaalka ay dalalka u dhoofi jireen. Intaas ayaan kusoo gabagabay doonaa markii ugu dambeeyay ee dunida.